tartankan kubadda cagta waxaa ka qayb galay kooxo laga soo kala xulay afarta waaxood ee ka kooban tahay degmada Boondheer ee gobolka Banaadir. waxaa xalay ciyaarta kama dambaysta ciyaaray laba kooxood oo ka kala socday. waxaa Siinay oo ka socotay kooxda Al-Cadaala iyo waaxda Yuusuf Al-Kownayn oo ay ka socotay kooxda Saddexda Geed, kuwaas oo ciyaaray tartanka kubadda cagta ee kama dambaysta degmada Boondheer ee gobolka Banaadir. gudoomiyaha degmada Boondheer ee gobolka Banaadir Zainab Yuusuf Wehliye ayaa sheegtay in ciyaaraha kubadda cagta ee lagu qabtay degmada Boondheer ay caddeyn u yihiin nabadgelyada ka jirta degmadaasi, waxayna rajo wanaagsan ka muujisay tartamada waaweyn ee dalka lagu qabanayo in kaalin weyn ay ka gaari doonaan. waxaa kaloo sharaf noo ah caawa oo tahay habeen in ay ka turjumayso ciyaarta aan halkan ku qabanayno iyo xafladani nabadda ka jirta degmada Boondheer. mudana gudoomiye anigoon warka badinaynin degmada Boondheer waa degmo lagu yaqaano sida uu u sheegay gudoomiyuhuba xadaarad iyo banooniga dadkii waaweyn oo la yaqaano oo maxaan ku yiraahdaa liidarada ka ahay banooniga ama kubadda cagta inay ka soo baxeen degmada Boondheer. ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Usmaan Yariiso ayaa sheegay in ciyaaraha kubadda cagta ay yihiin isdhexgalka bulshada, isla markaana ay ka qayb qaadan karaan amniga iyo xasiloonida gobolka. isboortigu waa horumarka dhalinyaradana wuxuu u yahay farxad, wuxuu u yahay bulsho, wuxuu u yahay inay isku bartaan, isdhexgalaan, isla markaana ay ka tashadaan aayahooda. dalkan wuxuu soo maray marxalado kala duwan. maanta suuragal ma ahayn sanooyin ka hor in sidaan oo kale Boondheer la isugu yimaado, sidaan oo kale quruxda badan ciyaarta loo soo bandhigo, looga soo wada qayb qaato. maantase waxaan u jeednaa labadii sano la soo dhaafay in magaalada Muqdisho iyo dhalinyaradeedaba ay u soo istaageen, isla markaana si u muujiyaan in caasimaddu ay tahay meel ay nabadi ka jirto, nolol ka jirto. nabad iyo nolol ayaana deeqdo dhammaanteen u baahannahay. waxaan leenahay ciyaaryahanada runtii muujiya ciyaar wanaagga, dishibliinka, oo ayagoo isku faraxsan, isku qoslaaya ciyaarta ay muujiyeenna ku qanacsan in ay caawa dhammaantood wada faraxsan yihiin. waxaa hubaala in koox ay qaadayso koobka, laakiin cid walba oo ka soo qayb gashay tartankana kaalin ka qaadatay ayaa iskale guusha. guushana waa guushii degmada Boondheer, dhammaan shacabka Boondheerana iska wada leh. waa mahadsantihiin mar kale maamulka iyo gudoomiyaha iyo shacabkaba. waxaan idin leenahay guuleysta, Boondheer ha guuleysato, Boondheer oo libaax jiro joog. waa mahadsantihiin. Mukhtaar Timcad, warbaahinta qaranka, Muqdisho.